maxaa keenay in xilligan xukuumadda madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro mucaaradad xoogan kala kulanta beesha Habarawal mas'uuliyiinta xilalka haya ee lumiyay kalsoonida bulshada iyo deegaanadooda wasiiro gabiilay ka ururiyay cuqaal u jawaabta Suldaan Xasan waxa maalmihii u dambeeyay si xoogaysanay mucaaradada ay xukuumadda Somaliland kala hor yimaadeen kooxo ku abtirsada beesha Habarawal kuwaasi oo safka hore kaga jira maareeyo hore ee wakaalada biyaha dhawaan iska casilay Maxamed Cali Daarood taas oo keentay in xukuumaddu xidho dhalinyaro dhaliilay aqoonsiga iyo kuwa kale oo arrimo ka hadlay Israa'iil iyo cilaaqaadka Somaliland iyadoo dhanka kalena uu si adag xarigooda uga soo horjeestay suldaanka guud ee beesha Habarawal Suldaan Xasan Suldaan Cabdiraxmaan Suldaan Diiriye oo hormuud ka ahaa guushii madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo kursiga madaxtooyada ku hantay isla markaana ku dhaliilay xukuumadda sheegay in ay jiraan wasiiro xukuumadda Ciro ka tirsan oo iyagu bulshada ku kicinaya xukuumadda u garwadeenka ka yahay madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro haddaba shacabka reer Somaliland ayaa arrimahan dareen kala duwan ka bixinaya halka ay isweydiinayaan dad badani hoosta ka xariiqeen dhaliisha kacdoonka dusha u saareen xubno wasiir ah oo ka soo jeeda beesha Habarawal oo iyagu ku fashilmay in ay buuxiyaan booska laga rabay ee ahayd inay daboolaan matalaada kuwaasi oo xataa lumiyay taageeradii xukuumadda ee suldaanka guud ee beesha cadayntaas oo u noqonaysa in shacabka iyo xukuumaddu ay si kala irdhoobayaan haddii aanu tallaabo degdeg ah qaadin madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro isla markaana soo dhisin golo wasiiro cusub iyo matalaad dadka deegaanadaas ah waxa xusid mudan in wasiirka wasaaradda maaliyadda Somaliland Cabdilaahi Xasan Aadan isagu ah wasiirka ugu tunka weyn xilalka xukuumadda ay ka hayaan beesha Habarawal gaar ahaan beesha Sacad Muuse u muuqda kuwa fashilmay matalaadda halka ay fashilka matalaadda beesha gaar ahaan Sacad Muuse ay tahli kari waayeen in ay isku soo dhaweeyaan xukuumadda iyo shacabka ka soo horjeestay sida wasiirka wasaaradda duulista iyo madaarada Fuad Axmed Nuux wasiirka wasaaradda qorsheynta Kaltuun Sheekh Xasan dhanka kale qaar ka mid ah wasiiradan ayaa kasbasho la'aanta suldaanka guud ee beeshooda xukuumadda u soo dhisay kaga jawaabay in ay abaabulaan cuqaal iyo qaar ka mid ah odayaasha gabiilay in ay ka difaacaan xukuumadda hadalkii Suldaan Xasan taasi oo iyaduna ah tallaabo kale oo sii kordhinaysa xukuumadda ay ka soo horjeestaan shacab badani isku soo wada duubo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo wasiiradiisa ka soo jeeda beesha Sacad Muuse ee uu ku fashilmay matalaadii deegaanadooda ayaa la filayaa in uu xukuumaddiisa ku sameeyo isku shaandhayn iyadoo hadday sidan sii ahaato ay caqabada iyo mucaaradada iyo hadalhaynta iska hor keenida bulshadaas iyo xukuumaddu ay sii xoogaysanayso baaqyada ka soo baxaya waxgaradka iyo siyaasiyiinta haldoorka iyo dadka kala duwan ee reer Somaliland gaar ahaan beesha aynu carabka ku dhufannay ayaa ugu baaqay madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro in uu si degdeg ah u soo dhiso xukuumadda taladaas oo iyadu saldhig u ahayd hadalkii uu dhawaan jeediyay suldaanka guud ee beesha Habarawal Suldaan Xasan Suldaan Cabdiraxmaan Suldaan Diiriye xildheerayaashu waxa ay ku baaqayaan inuu madaxweynuhu sameeyo isbedel weyn oo mug iyo baar leh taas oo uu ku saleeyo xukuumaddii aqoonsiga iyo kala shaqaynayda arrimaha gudaha ku mahadsantahay inaad ka mid tahay daawadayaasha Xogreeb TV ka mid noqo kumanaanka qof ee ku taxan Facebook-geena Xogreeb follow soo dheh oo nagu soo biir sidoo kalena ha ilaawin share iyo comment kuwa noo mihin daawade waad ku mahadsantahay sida aad noogu xidhan tahay